بسم الله والصلاة والسلام على حبيب الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كسر هذا بلا أكاديمي ويدين سو قد بنيساء تابر مدو كوبان سعون دونا أو كصابسان حيالدها أما حرفدها مارين وقتك. Section 4 قيبت أفراد Time Management Skills. qaybtan waxaynu ku eegi doonaa halkii u muhiimsanayd ama halkii mucdi 10ka waa xirfadaha maareynta waqtiga. Hadaba si aad u maareysato waqtigaaga xirfado noocee ah ayaa talo u baahan tahay. waxa ka ah prioritizing inaad leedahay xirfada la yiraahdo kala mudnaysiin. Tan micnaheedu waa mudnaansiinta hawlaha muhiimka ay tahay in la qabto. tusaale ahaan horreysii hawlaha muhiimka ah ee degdega ah. mudnaansiintu waxay kaa caawinaysaa inaad maalintaada iyo habeenkaaga si farxad leh ugu naalooto. xirfadda labaad ee laga rabaa waa maxay hadaba iyaduna waxa ay tahay scheduling, adeegsiga jadwalka. jadwal u samaynta hawlahaagu waxay kaa dhigayaan ruux u hanta si xiliyeysan ahdaafta u dejisan maalintiisa ama wiigiisaba. jadwalku waa mid ka mid ah tiirarka barnaamijka maareynta waqtiga. haddii aanad yeelanna waxaad ku dhamaysan maalintaada iyo habeenkaagaba nidaam la'aan. xirfadda saddexaad ee u baahan tahay inaad taqaano waa delegation, qaybin iyo wakiilasho. kani waa mid ka mid ah nidaamka ugu habboon ee loo maareeyo waqtiga loogana dheeraado werwerka iyo walaaca. waa hanaanka looga faa'iideysto ruux kale awoodiisa iyo dadaalkiisa si uu kaaga qabto hawl marka ay kugu soo baxdo hawl kale oo muhiima taasi oo degdeg ah. xirfadda afraad ee aad u baahan tahay in aad yeelato waxa weeyaan resting, nasasho. waqtiga nasasho inaad u samayso naftaada. waa inaad u qaybiso hawlaha culculus qaybo yaryar kuna darsato jadwalkaaga xilliyo nasasho si aad u dareento caafimaad muddada aad gudanayso hawlaha waaweyn. inahaas ayaynu kusoo koobaynaa sectionkeenaas. aad baad mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.